السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قاليقة رمضان مبارك ميلو بادون كجوكتان إنه حال مريا طوان كدام بش بركة سنين رمضان إلهي هنا لكل نسيو إن هبين كليلة القدرية أعماشان بشان بركة سنين صوود إن إلهي هنا أقبله إن كسودو هذا برنامج جديد عافمات كينده وحان كهالدينا موضوع عادي مهم وحان كهالدينا نفق الدرد إن ده كدعا وحيابه الصبو dad badan isbitaalada dhaqaatiirta indhaha inay u tagaan waxaa la soo dhahay indhahaaga sida kale way u fiican yihiin laakiin indhahaaga nafaqa darada ku dhacday soo marka nafaqa darada markay isha ku dhacdo waxyaabaha sababa ayaan ka hadlaynaa waxyaabaha cause gareeyo video waxaa hore ugu soo hadalnay mataqaanaa cuntooyinka nafaqada in isha soo celiyo marka maanta haduu ilaahay waxaan ka hadlaynaa nafaqa daradaba waxa sababa ayaan ka hadlaynaa causeska midda ugu horeyso nafaqa darada indhaha ku dhaca waxa ugu weyn ee sababa waa vitamin waxyaabahan ka hadlayno waa vitamin la waayo markaas kadib waxa dhacay indhihi inay mataqaana nafaqa daro ku dhaco vitaminka isha ugu horeeyo ee hadii la waayo nafaqa daro isha ku dhaceyso waxa loo yaqaan vitamin A deficiency waa serophthalmia hadii la waayo vitaminkan maxaa dhacay waxaan hore ugu soo hadalnay cuntooyin laga helo vitamin A ga oo aad iyo aad isha muhiim ugu tahay laakiin maanta hadii vitamin A la waayo maxaa isha ku dhacay waxa ku dhacayo laba dhibaato aad iyo aad u waaweyn midda koowaad night blindness habeenkii qofka inuu wax arki karin dad qaar isbitaalada inay tagaan waxay dhahayaan anaga habeenkii wax ma aragn markii habeenkii la gaaro waxa ka maqan vitaminkan ka maqan jirka oo jirkiisa ka maqan midda labaad dry eye indhihi ayaa qalala waa most common waxyaabaha vitaminka markii qofka vitaminka markuu yaraado waxyaabaha oo mataqaana indha la'aanta sabab waxyaabaha ugu badan ee ku jiraan vitaminka hadii la waayo soo marka dry eye-ga isha normalka ilintaas ayay quudataa marka muhiim waxay u tahay mataqaana ilintaasi waxa ku jiro waxyaabo proteins ku jiro waxyaabo jirka oo mataqaana ilinta wax kaga difaacaya ku jiro marka waxyaabo vitamins ku jiro marka vitamin A muhiim waxay u tahay mataqaana waxay qof kaga sii hortagaysaa qaleel indhaha inuu ku dhaco soo gal habeenkii wax arko waxyaabo dhan ka hortagaysaa marka muhiim waa qofka haduu isticmaalo indhaha waxa ku dhacaya nafaqa daro midda labaad ee sababa indhaha nafaqa daro inay ku dhacdo waxa loo yaqaan waa vitamin B2 deficiency vitaminkan asiga waxa loo yaqaan afka waxa loo magacaaba riboflavin kani waxaa la sheegay study waxaa la sheegay inta u dhaxaysa 31 ilaa 51% inuu yareynayo cudurka ku dhaco caadka indhaha soo marka hadii qofka isticmaalo cuntooyinka laga helo vitamin B2 deficiency vitamin B2 haduu cuntooyinka laga helo haduu isticmaalo waxa yaraanaya caadka indhaha ku sameysma yaraanaya marka dadka waaweynka aad iyo aad ay muhiim u yahay hadii laga waayo ka waran qofka hadii la waayo oo isticmaal waayo jirkiisa la isticmaal waayo wuxuu soo dadajinaa caadka indhaha ku dhaco midda saddexaad waa midda saddexaad ugu muhiimsan uguna weyn waa mataqaana omega 3 fat acid in laga waayo soo marka omega 3 fat acid waa tab kamid ah polyunsaturated fat fatkan loo yaqaano polyunsaturated nooc kamid ah omega 3 fat acidka horena ugu soo hadalnay waxa laga helaa malaayga laga helaa marka muxuu muhiim ugu yahay oo haduu qofka isticmaalo waxay nafaqa dareeshiis ugu dhacay waxa leeyahay polyunsaturated omega 3 fat acidka seelkan ku dahaaran qaybta dambe ee isha loo yaqaano retinaha seelkaasi wuxuu mataqaana la xiriira mataqaana contain wuxuu leeyahay type of mataqaana acidkan ayuu muhiim ugu yahay soo marka omega 3 particularly si gooni wuxuu muhiim ugu yahay wuxuu qofka kaga hortagaa anti inflammatory properties ayuu kaga hortagaa soo kale wuxuuna kaloo ka qayb qaadanaya oo muhiim wuxuu ugu yahay mataqaana prevention oo ugu hortagaya sokorta indhaha ku dhacdo waxyaabo ugu badan oo isbitaalada indhaha loo tago soo marka waxa leeyahay percentage research la sameeyay 31% ayaa lagu ogaaday dadka isticmaalay high mataqaana oil fish kan oo mataqaana malaaygan laga helo omega 3 fat acid kan dad badan isticmaaleen ayaa research lagu ogaaday in mataqaana prevention kaga noqotay ay kaga hortagto cudurkan mataqaana sokorta marka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay saddexdoodba adin kaga mahad celinaya daawashada videogan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.